ka wada axmed dadku inta badan waxay iska arkayaan maan wax badan oo qarsoon aadan u dareemi karaa waana kugu kadiir runtii wax laga yaabaa weligaa inaan cidna ku weydiinin dadkaad la shaqaysay dadkaa saaxiibada la ahayd inaysan weligaa ku dhin axmedow maxaa dhibaato noloshaada ku haysta ama ku soo maray waa mahadsantahay aan le aniga horta qoyskayga aniga hadda ka nool qoyskaaga meeqa ahaydeen waxaan gabar aniga lalatay oo wixii hooyo dhashay aabba u dhashay waxaan aniga iyo walaashay bah kaloo aabba samaystay jirin hal gabar u dhashay hooyane hal wiil ee hor u dhashay oo orodkeena ugu jiray sidaad markaa 2004 oo isaga dhintay kadib runtii aabbo wuxuu xooga saarayay ama hooyana waxay dhimatay sanadkii 2000 aabba ayaa aniga isoo koriyey iyo adeer oo waxbarashadeeda iyo nolosheeda inta badan iyaga ayaa Soomaaliya gacanta ku hayay ayaan loo qadarta kulama tashanayso halkii gabar oo ila dhalatay ugu weyneed oo saaxiibada aan ahayn ayadana tii rabbi yaa imaado way dhimatay aabba markaa xaas ayuu waqti badan lahaa 2007 ay hal gabar u dhashay gabadhaas ayadana haddana anuu Hargeysa joogaa la isoo sheegay inay dhimatay sideed markaa hadda kaliya soo haray qoyskiina aabbana wuxuu dhintay 2020 marka afar walaalaha aad noqonaysaan iyo labadii waalid inta way dhintay naana hadda adaa ka nool marka waay maxaa geeridooda way sababsadeen kula tahay ayaan waxaa jiro xanuun sorry axmed taye isku day inaad hadasho axmed waan dareemi karaa xanuunkeeda marka xanuun ay u dhinteen xaalad caafimaad u dhinteen si fiican intoodaba qoyskaagii oo dhan maxay tahay xaaladdaas caafimaad xanuunka sokorta u dhinteen sokorta type 1 ilaaha u naxariisto hooyo way qabtay waqtigii hooyo inkastoo hadda dhakhaatiirta iyo meelo badan looga hadlo xanuunka hadda waa la dagaalami karaa laakiin markaas markii waa 2000 ahayd markii hooyo dhimaysay waa ogaa inay xanuunka qabto aniga aad u yaraa marka dhaxal ahaan abaayana ugu dhimatay aabana asina dhiig karaa dilay kastoo sakar uusan qabin aabba marka sokortii ayaa reerkaagii laysay aabbar dhiig kara u dhintay marka dhaxal hooyo ka yimid oo ahaa adimu ku soo gaarta marka ayaan ani hadda waan la noolahay sokortaan roosha type 1kii dareenkii marka reebay soo dareemi karaa qoyskaagii oo dhan inay adiga ka nooshaa maanta wixii hooyo aabba dhaleenba adaa ka nool si fiican marka cabsidaadu waxay tahay marka xanuunkay u dhintaan waad qabtaa halkiteeda si fiican marka ayaan aniga muddo badanaa qaba xanuunka dadkana nin iska afkaaban oo aan dadka la wadaagina ah xanuunkiisa daawooyina isticmaalayaan loo daawooyinkaas runtii maalin walba u baahan tahay arbada isticmaashaa arbada isticmaalaa 2007 yaa bilaabay ilaa hadda isticmaalayaan oo maalin walba iska dhahayn muuqaalkaaga soo kordhin qabtid waa qof fiican hataa anigana mar kasto aan aniga ilaa xad intii maaragtay inaan la dagaalamo waana la dagaalamay ayaan loo guulaystay alxamdulilah waxaan rajeynaa anigii intii qabtaba ilaahay inuu ka dulqaado marka dadka muuqaalkaaga u muuqdo laakiin wax ka hooseeya ma hoosa gudahaaga wax ka jiro ma cirbadda marka dhaqaale ahaan ka war ma awoodtaa inaad maalin walba cirbadda gadato ayaan alxamdulilah dad badan oo hadda waxaa jiro oo xanuunka qabo oo mararka qaar aniga ayaa ka bixiyaba sababtoo ah waxaan dareemaa dhibka iyo dhibaatada ay leedahay anigana uma sheego inaan xanuunkaas noolahay oo sokorta ah
runtii ayaanoo waxaa jirta fariin aba ayaa ku wada sheekaysanay markii xanuunka aan ani 2014 sokorta laga helay ayaanu intaas saaxiibada igu dhow xataa maysan ogaanin maalin laakiin maanta markii ugu horreysay wax liiga weydiiyey dadis cid ku weydiisay ma jirin cid weydiisay ma jirin abaya iyo wadada abaya wada sheekaysan jirtay aad isugu dhaweydeen ay sokorta markii laga helay maxaa dhacay waa wacay markaas joogtay xilligii shaqada bilaabayay waxaan sheegay in xanuunkaas jiro ayadana xanuunkeeda ogaa mugta aniga markaas daawada iyo markaar ana u gudi jiray markaasna tababar iska ahay oo wax oo lacag ma qaadan jirin marka culayska walaasha marka xanuunkan aniga hadda ugu dhacay inuu idilaaba ii fiicanana way iwaanisay waxay dhahday ilaahay ka cabso qof taqoob badan oo alla ka cabsiga ku fiicanayd